ku qoran awgood warbixinta guddigu waxay u qoran tahay sidii warbixin ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda oo kale sababtoo ah ma sheegayso khaladaadkii ama dhaliilihii miisaaniyadda warbixinta guddigu waxay garab martay ujeedada sharciga maareynta maaliyadda ee baarlamaankani uu ansixiyay 2013 qodobkeeda koowaad waxay garab martay maxaa la yiraahdaa xeerka miisaaniyadda ee 2017 qodobka koowaad farqada labaad iyo qodobka labaad farqada a sida ay sheegeen dhammaan xildhibaanadii ka dooday markii daraad guddoonka guddiguna qireen had iyo jeer wasaaradda maaliyadda kuma dhaqanto siyaasadda loo dejiyo tashiilka iyo kala horumarinta miisaaniyadda mudana guddoomiye sidoo kale waxaan codsanaynaa in miisaaniyadda 2018 la waafajiyo sharciga maareynta maaliyadda ee 2017 iyadoo qorshaha miisaaniyadda ee kii 2013 14 15 la tixraacayo iyo xeerkii aan u ansixinay in laga soxo qaladaadka dhinaca qoondada maxaa la yiraahdaa xisaab xidhka 2000 ku jira miisaaniyadda oo xafiis kasta miisaaniyadiisa lagu saleeyo baahidiisa lama huraanka ah maadaama la og yahay in aan qoondadan lagu dhaqmaa cadaalad ahayn oo xafiisyada qaar qaataan miisaaniyad aad u fara badan mudana guddoomiye annagu ma ahan inaan diidanahay in la ansixiyo annaga raalli ka in la ansixiyo si miisaaniyadda kalena loo keeno